dhakhtarkii baanu tagnay weynaa wuxuu yidhi 15 cishaad noolaanaysa aniga Hyderabad transit oo ayaa nin aan saaxiib nahay oo aan gacaltooyo iyo saaxiibtinimo badan ku toomayay aynan naga dhaxaysay dhab ahaantii oo igu yidhi Delhiba ka soo degay Delhi markaan ka soo degnay migration baan qabtay 2 cishaan la xiray oo nalsoo tarxiila waxaana lagu soo tarxiilay garoonka Hargeysa waa dad inaga tago hebela wadadaynu garanayno oo ehel iyo gacal iyo xigta haddana aan jixin lahayn oo dugaagnimada mar walba ay xaggooda ka tahay ama ay ka sarreyso waxaan ku noqday Hindiya halkaa Hindiya markaan tegay waxay dhakhaatiirtu eegeen beerkayga baadheen nasiib darro waxaan ninkii markii hore Delhi naga dejiyay nakhalday ku hagardaamiyey ayaan weli gacalnimo ka dugsanayaa oo aan ku dega beerkaygii oo laga daweyn infectionkii iyo xanuunkii hore oo sidiisii isaga dhooqaysan ayaa beerkii cusub